بريتو waxaa isku aadaan filahayaa anu waxay isu soo doonayaan ma garanayay waxaa isku aaday jumco iyo ciiday iyo ciid ba isku aaday meel badan waagan joognay ciid iyo jumco iswaafaqda wayba yaraan jirtay laakiin Nairobi intan hadda joogno isku soo batay sanadka hore miyay kulmeen horta soo sidaa ma ahayn sanadka hore waa kulmeen oo mid wax yar ka soo horeeyay waa kulmeen maantana waa is hayaan marka taasna hadda ka hor waa ka hadlay risaalana waan ka qoray laakiin kolbo ninaan la soconin xaaladda oo su'aal iska ka weydiin telefoonka ugu soo dhici baa iska badan marka waa damaashaad ciid baan u malayn qarax ma yahay iska fadhiya marka way iska soo badatay hawsha berito marka jumcada ciid iyo waxaa kulmay iyo ciid iyo jumcadii horaan baa la soo tukan jiray ciidu oo ciidul fidriga loo yaqaano waa ciidii sanadka jumcada aan tukan jirna waa ciidii isbuuca laba ciidood oo kulmay oo kala weyn way kala weyn yihiin soo sidaa ma haddii weyso iyo ay kulmaan qabiiskii janaabada maxaad samaysaan nin sarifa oo kala qaada iyo nin jumleeyaad leeyihiin ninka jumleey muxuu sameeyaa wuu qabaystaa oo weysadii wuxuu dhex galiyaa qabayska ninna wuu sarifaayo intuu qabaysto iyo haddana weysaystaa ama uu ka hormariya ama uu ka dib mariya labadaa ciidood way kala weyn yihiin kee weyn midda sanadkii mar timaadaa weyn midda cusbuuc walba soo noqnoqotana waa ciiddii yarayd ciidda yarayd baa la xambaaranayaa yaa xambaaranayo dhabarka u ridanaya tii weyneyd inta inaad wax ku fahanteen baan u malay salaaduhu waa isgalaangalaan tahaaraadka isgalaangala laba shay oo isku jinsi ah isku maqsuuda isku xikma isku nooc haday kulmaana qaacidatu tadaakhul ee lixda baab ee fiqiga gali jirtay baabu tahaaraat baabu salawaat baabu siyaam baabu alhajj baabu alkafaaraat baabu alhudud waljinaayat lixda baab weey أبواب تتداخل كله يقانا في الشريعة الإسلامية إعانك كؤة مر هذي لبضع كلمين علماء المسلمين تبغى اسكن من داف كنا بقول كيف السجاشن وحكوس ليسي هاي نين حك خاصة كهيا باب كانيو نمن حك خاصة كهيني سيدنا علي وحلق سوبوريا لو سكت من لا يعلم لكان العلم نقطة منك جاهل كائن مسألة جرانين أما أقولها تسكأ مصلها علم قريب بس ونقول لها كتبتم واوين بطل الله بعدين أنا مسألة أوجين بانس كذا طهرا وذات بقى يجهل ودي هلا صحكن كي كواسي صحي ماشي محاك دلان بطبا كدلان سومالي وحيد كذا هذا وحن لود عيسنين وترمى هذا الباكرة وسكترنا هذا ضد شو هذا كوبا دي محل الله وابو محل كرتار كله وابو محل سوبودي كوبا كله سومالي بقى كده هو اسكاساس هذا قراتير ضرب عليه هذا الكم مسألة ده كتيرة بدن كي وحقوق بدن هاي وذا حق خاصة كهين المسألة ده وكهالله إن يكون راعين كدم مذهب لقدر مذاهب تسيد قصة ليس وحكم مذهب الشافعية ده لأن صنادة خاص كتمت اجتماع العيدين شافعي ورقم هيس لا شافعينا كما هل لأنه آثار تكتمت مسنهلين وحي مركز سوى لكم أنا أنتو هيبوا كل اجتهادين مذهب دونيش ومحوجي عيدنا ولا تكن جمعة إلا تكن واجب حنفية هالكامرتي مالكية هالكامرتي صدح ذا مذهب ورقض وحكوس ليسان يحق الآن كهيسة سنة النبي كتم في هذا الباب يا آثار الصحابة يا آثار التابعين طينات قرأتها مهم جدا وذاتك هذا الكيس حقوقي ميسيه ميشو كدوله وذاتي الدنبيه سنة هلي أما شافعية أها أما مالكية أها أما حنفية أها أي الدنيا اللي بقى من أنا جمعية سنة إنا يضفران مرة بعد شافعية مالكي أبو حنيفة إنا خلافنا مرة بعد لمن كان محيسا مياه
waxay sameeyaan adilada baabka ku timid bay sinsaareeyaan sinsaaro culus bay u dhigaan way awilaan waa leexiyaan way soo luqun jubaaraan say u wadaan waxay ku soo fooriyaan wabihi qaala shaafici wabihi qaala maalik wabihi qaala abu xaniifa sidaa yidhi hawshaa aada la iskaga ilaaliyo mar hadday sunnadu caddaato lama baahno in wax la lexleexiyo taa markaan ka gudbo mas'alada ciid iyo jumca hadday kulmaan 8 madhab iyo wax ka badan baa ku jira way ahlu qibla iskugu maandhaafeen madhabka jumhuur الصحaabة wa jumhuur الtaabiciin waa maxay jumhuur الصحaabة wa jumhuur الtaabiciin waxaa weeye ninkii ciid tukada jumcadu waajib kuma aha duhurna waa barankafay laga ajirsiin maayo duhur hadduu tukado haddaan lagu cadaabaynin marka aada u fahma ninkii ciid soo tukada jumco waajib kuma ah inuu tukadana waa loo sunneeya inuu iska dayana waa u bannaanta limaada soo annaga hadda soo marayna ma aha laba ciidoo kala weyn baa kulmay mid baa mid xambaaratay muslimiinta waxaa u fasaxan inay kala sarifaan iyo inay isku qabtaan oo jumleeyaan warkaa waraad fahmi kartaan maalinka ayada 5 salaadood baa waajib ahayd ninkii ciidda basa tukada ee jumca iska daaya 5 salaadood uu tukaday waxaad soo tukatay salaad maghrib waxaad soo tukatay salaad cishe maxaa ku xiga fajr maxaa ku xiga ciid casar 5 madhatan isma dhan maghrib cishe salaad subax ciid salaatul casr 5 salaadood wey ninkii ciid tukada duhurna u tukada inay waajib tahay 6 salaadood buu tukaday oo waajib ah diintana salkuma laha waxaajo ugub ah diin soomaaliyeedna ma aha tii nabi maxamedna ma aha tu saxaabana ma aha meela haysata lama yaqaan hawsha inaad aada u fahantaan wey maalinka ayadaa 5 salaadood baa waajib ah booska jumca ku fadhiday yaa u yimid ciid ka xoog badan ciri barakale ku riixday waxay tahay laba mid yeel aan isxambaaranno oo aniga fan kalama iskaga tag meesha awoodana nabi maxamed baasiye calayhi salaatu wasalaam ninkii ku yidhaahda ciiduna waajib bay kugu tahay duhurna waajib buu kugu yahay wuxuu ku saaray 6 salaadood shareecadeenna salkuma laha ilaahayna ma sheegin rasuulkuna ma sheegin saxaabana ma sheegin muslimiinna kuma ijmaacin marka waa balaaya ku saartay iska ilaaliya culamada Soomaaliyeed ninka ugu aqoon badnaa uguna da'weynay kumuu ahaa shareeb cabduna raxmatullaahi tacaala calayh wadaad baa hadda masjid uu dhiso ku magacaabay hawshaan aad baan u soo dhaweynaya laanno abaal buu ummaddu ku leeyahay shariifku in la ixtiraamo magaciisa wuxuu ku sii jiri lahaa ama ummaddu ku xasuusan lahayd la sameeyo waa heer sare weeye aad baan u quruxsan tahay shariifku wuxuu qabaa oo kutubtiisa ku duuban ninka ciid tukada jumcana waajib kuma aha duhurna waajib kuma aha salaad waajibka waxaa u horeysa casar hawshaas aad uga fiirsada shariifku halkaa u maray Sheekh Albani waa la qaba culimadu ma halkaa la martay xagga salafka haday u nimaadno madhabka asaga ah ninkii ciid tukaday inaan jumca laga rabin wujuuban oon duhur laga rabin wujuuban waxaa loo tiiriyaa sayidina Umar علي ابن عباس عبد الله بن الزبير ابن عمر حق التابعين فقهاء التابعين بل أكثر الفقهاء واللي يوجد فقهاء الصحابة والتابعين وشعبي كمديهي عطاء كمديهي إبراهيم النخعي عطاء بن سائب عطاء بن رباح وخلاف سنة لا ما هي بقى هل قصائدين شيئية قولية وحال ليدي نمضاد قالي حنبع عسكي بالي qadiyadaani waa xaajo ugub ku ah shariicada iyo sunnada
maalmihii hore wax la tukan jiray laga hadli maayo sanad wax la soo waday lagama hadlahayo sayidina mucaawiya khilaafadiisibuu u yeedhay saxaabigii zayd bnu arqama wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey intaad nabiga la noolayd weligaa ma aragtay nebi maxamed ay kulmeen ciid iyo jumco isqabteen ma la kulantay haa muxuu ka sameeyey buu sunankaad ku marteene nabigu ciidiiba ummadda tujiyey kadibna wuxuu yidhi ciiddii baynu tukanay ninkii rabaa ciiddu way kaga filan tahay jumcadii ninkii rabana wuu isku dari karaa aniguse waa israacinaya meeshaa laba sunnaa ku jirta sunna ficliya iyo sunna qowliya weligaa ha khaldamin sunnada ficliga waa maxay waa nabigu falkuu sameeyey ciidna inuu tukaday jumcana uu tukado israaciyey jumcada uu tukaday nabigu ooma tukanin waajibnimo wuxuu u tukaday sunnanimo u tukaday sunna qowliya way ku jirtaa waa maxay faman salla alciida ajza'atu can aljumca wa inaa mujamicuun ninka ciidda tukada ciiddu jumcada inay kaga filan tahayna waa sunna qowliya ninka intuu ciidda tukado iska seexda een jumco tukanin een duhur tukanin faqad asaaba sunna leedahay asaaba sunna maxay nooga jeednaa sunnadee tii qowliga ahayd weeye tii ficliga ahayd ma aha sidaa inaad wuxuu fahantaa lagaa rabaa sunnadu mid ficlina meeshay ku jirtaa mid qowlina meeshay ku jirtaa ninka ruqsada qaatay sunnuu ku dhaqmay ninkii isku darayna sunnuu ku dhaqmay labadu waa sunno sidaa wax u fahan qodobka ii raaca waxaa weeye laba saxaabi yaa mas'alada kiciyey laguna kala jabay mid waa sayidina cuhmaan midna waa sayidina cabdullaahi ibnu zubayr saxaaba xagga cabdullaahi bay u badan yihiin aharka cuhmaan ibnu cafaan aan wax yar ka dhaho waxaa la nin daad qaaday baa layidhi xumba cuskay soomaalida iyo carabtan waxay tidhaahdaa alghariiqu yatacallaq bikulli cuud alghariiq yatacallaq bikulli cuud xilligii sayidina cuhmaan baa ciid isqabata asagoo khaliifa waayeen markuu ciiddi tukaday ayuu istaago wuxuu ihi muslimiinay intiina xaafadda madiine ee korkore ka yimid min ahli lcawaali waa idiin fasaxo waad noqon kartaan intiina kale jooga wanaad jumcada ila tukataanbu intiina waan fasaxay inta kalena fasax la-aan wey bar fadhiya aharka asagaa fahamkiisu ahar mashhuura ma aha ahar macmuulu bihi ana maaha cinda salafi saalix bal waa ahar uu yidhi maalik axad qaba ama sidaa ma ogi buuri lam yaqulhu axadu hayru cuhmaan bin cafaan buuri waa maalik imaam daar hijra aad taqaanaan wax qaba madhabkaa ma jira buu ihi maalik wabitaali wuxuu ree cawaalidu waa reer madiinay ka mid yihiinoo jumcada waajib bay ku tahay cumaanna waa ijtihaada warkiisuna waxba kama jiraan maalik aarka noocaas haddii loo ka warra waa aar mashhuura caan baxay la yaqaana lagu dhaqmay waxaa weeye dhallinyaradu inay wax bartaan caamaduna waxaan odhan lahaa weligiin xajiyaal ha noqonine diintii ilaahayaa laydinka turjumayna barto oo wadaadda ha u daba fadhiina raganimadiin maxaa layidhi raganimadaa rag looma dhiibto nin walba dhankuu rabuu kuu riixi waa aftahano wuxuu doono kugu samayn ahlulbidcu maxay yaqaanaa qolyaa waxaa jira la yidhaahdo waxaana naxnu ahlulcadl ahlu tawxiidi walcadl ahlu tawxiid walcadli ma taqaanaan ahlu tawxiidi walcadli waa muctasilo tawxiidka waxay oga jeedaan sifaadkii ilaahay oo la dafiro cadliga waxay oga jeedaan ninkii dembi ku dhaca isagoon toobadkeena aakhare in la cadaaba waa waajib ilahay ma cafi karo naarta waa in lagu boqoji oo uu ku waaro weligii usan ka bixin saa rabbigay hadduusan yeelina caadil maahay dheh maxayna ku yidhahan quruxsanaa magacu ahlulcadli ahlu tawxiidi walcadl haddaadan ka fiirsan horada magac fiican ba magaxa ii saara waa fiican yahay ahlu tawxiid xaggana ahlulcadliyaa ka wanaagsan baasha haddii laydin qurxiyo wuxuu ihi taquulu hada mujaaju naxli tamdaxuhu wain tashaa qulta daa qayu zanaabiir
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء التعبير حور ملبك هذا دونت مرواد عاي مرنواد أماني مركز أماني سو حاده يقول واشني ملبكات مركز ربط ملبك هنا حاده ودخسي كاددي يحاركي يا طف ملبك يا دالي شني بقى يقدر أما طفته شنو ذو محيط دخسي وين هذوي مولي باختفولك سوء ماك محيط يقضي وعور والحق قد يعتريه سوء التعبير شيء حقها سحن هذا الله عبر بلاي ونقر باطل كي هذا الشارق ورحسن لو قليين من نقنيه حق بو كانيا ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري ضمير هذا الله حرير يذهب ورعجب بدنا ام بلدي marka waxa weeye xaq marna waxa loo galiyaa dhar foolxun marna baatilka dhar saxan loo galiyaa hawsha iska atharkaasi ibn Uthman uu soo laabto Abu Walid al-Baji wuxuu waa athar la isku maandhaafay macnihiisa waana khalad sidiisuba in loo maxaa yeelay laba u fiirsada qoliyaha reeca wali uu fasaxay waa laba mid kamid ah in jumcadu waajib ay ku ahayd iyo in kale jumca waajib kuga ah ma amiir ba ka fasaxi kara reeca waliyo waxaan idin ka fasaxay jumcadi ee iska taga inta kalena ma dhaqaaqi kara macnaheedu waxa weeye jumca horaan ba waajib idin kuma ahayna waa fasaxanti intan laakiin waxaan rabaa ana amiirhe khaliife inay jamaacada isu camiraan shayga faradka ilaahay ku saaray idan amiirna kuma dhaco fasaxiina kuma dhaco diidadiina kuma fulo saadarta ahmed iyo jamaaca waxay dhaheen xaafid xajar baa wuxuu waxa loo daliishay atharku Uthman loo daliishaday bar u daliishaday ninka ciidtu kada jumca waajib kuma ah wabihi xukiya an ahmed buri wal xagaas waa loo daliishaday qolay waxay u daliishadeen ninka ciidtu kada ciid iyo jumca waajib bay ku tahay waa athar la isku maandhaafay macnihiisa saxda ana si fiican waxa uga hadlay Abu al-Baji kitaabkiisa muntaqal al-muntaqa fi sharh al-muwatta al-akhri xuuru wax marka la soo gaabiyo waa athar aan macna lahayn oo mushkila laba mid way reeca wali xaafadaha miji lama sheegin riwaayadu waxa weeye xaafadihii korkareen Madiino Uthman fasaxay xaafadaha korkareen Madiino wuxuu Maalik khilaaf kuma ogi xaafadaha inay Madiina ka tirsan yihiin jumcaduna ay waajib tahay cid fasaxdayna Uthman baa ugu horeey warkiisuna waxa laga soo qaadimayo waa Maalik baalka taagan soo gaabi xaafadaha sarsareen Madiino jumcadu ma waajib bay ku ahayd misamaya Sayyidina Uthman هذا واجب كو أهيد ما أمير باردي كره إذن كايدو ويديه أثر كعثمان ما كلا دبعية محو نغضي إذن كم الرخصة بقى إذن وقلاده واسكتك عيد بقى إذن كرهت الجمعة ده أنت كان أنا عيد الجمعة وده تكون هياي هلا يعمر مسايتك سو أنت ما معنا كلا ياك كيني كره إيش يا إذنكم معنا كان نيك كنا بانا إذنكم فهمتنا نيروبي وحاطر حافظة سودي سوتيو جمعة وين كفصحي تصالك قابل لكن رئيس لي إيو إيشك بنغاني يباك رود إلى سيتي باك إلى ماشا مداره وصدوك ودن صوتو كذا كله قل ياها ريسوتي ريسوت بي لبا مدون وي إن الجمعة واجب كتهاي ينسان كو أهاي هذا يسان جمعة واجب كو أهاين فصح أمير المؤمنين الله بهنا متى يسمى هذا واجب كتهاينا ويهران بصارينا فسحي سمر ذكره ما إنه يسفهمه ماشي محاكا صباحي ورانو وحان دورتي سيد النبي وجمعي عيد يا جمعينا اسكو داريه مسلمين إنه وين مساعد كتماطو يسان كدقاقين انتي نكركرنا موتوينك نراعوا صعبة ورقصوا انت معها يا بين لسو الشيء سيدنا عثمان وحو سقم الله تيرين أما سيدنا عبد الله بن الزبير أصغو هوش سبناك بيسكت الله مالين با عيد جمعة كل مي عيدي بوتكذي كدبنا جمعة ما تكنن أصغو أمير المسلمين تا مركا يدا ظهرنا ما تكنن حرت يا تابعين يا صحابة الصغار تو يا مساجد صور وبتحلق جمعة ضحي أميركم ما وصل بحم ما كان لجوجا حرم الله المكي بقى لفرديا وما صور دقاق وحصل بحي واي أمير متشو خطيب متشو إمام متشو
maxay sameeyeen intii caamada ahayd baa tukatay culimadu iska kala dareereen cataa baa sheegay wuxuu anigu waxaan ka mid ahaa caamadii maalinkaas tay xanaaqeen markay ku jumca waayeen duhur iskaga cali qubay cataa waa taabici fuqahaa taabiciin buu ku jira waa taqaanaan waa reer maka sheekhoodii wey nin la aqoonana ma jiro reer maka waad garanaysa wuxuu yidhi marka anagu wareeray waa iska tuka wuxuu yidhi fuqahadii laakiin fiqiga yaqaanay arrinku cabdullaahi ibnu zubayr sameeyey ma aysan qoonsanin bu ama caamadii iyo in reer banu umayya qoonsatay bu markii la qabsaday cabdullaahi ibnu zubayr sidan maxaad u yeeshay wuxuu yidhi sayidina cumar amiiru lmu'miniin ibnu khataab oo tan oy kaa qabsatay baan arkayoo ciid tukaday jumco iyo duhur midna aan tukanin cabdullaahi ibnu cabbaas oo ibnu zubayr isku xumaayeenoo meexun kala marahayeenoo daa'if jiray yaa lagu dacweeyey oo lagu jaaday waxaa lagu maqashay ninkaad qaraabada ahayd muxuu sameeyey intuu ciid kaliya tukaday buu sallaa jumco walaa duhur ummaddii wax tujiyaa waa masaajidkii fawdo waa lagu jaaday ibnu cabbaas baa loo sheegay wuxuu yihi asaaba sunna sunnuu ku habsay sunnadee buu ujeedaa horaan baan kaa soo saxay hadda waa sunnadii qowliga ahayd bidaaru sibiq kugu gashay dabagelisku kuu bixi dabagelisku hadduu kuu baxo si wadaaddo badan oogu baxay culimo ismood culimo lamood ah waad ku aafoobi marka wuxuu ihi asaaba sunna idabdarrada la sameeyo hadda ka socota social media waxaa ka mid a asaaba sunna la rabaa in lagu ciyaaro usuulkii iyo diintii la bartayna lama rabo lanna waxaa la rabaa wadaad xasaan la yidhahdo masalada ku khilaafsan in lagu duulo la bahdilo la baangadeeyo anu nin saa lagu mara ma ihi in sidaa lagu maro oo baalax burdo lagu mara ma ihi ninkii aniga imaagan wixii saa caddaysto diintiisaa lagu tumanin diinta in lagu tunta laakiin ma ogoli asaaba sunna saxaabi hadduu yidhahdo bayqunid maxaad ku barateen sunnada nabi maxamed in lagu awilaa waajiba in dayn la hela mooye usuushu saasay sheegaysa maxaa loo leexin loo wareegaysa haddaad diidaan ibn cabdilbari waayo uu ka wariyay min ariiqa cabdillahi bni xumraan wuxuu ihi asaaba sunnata nabiy calayhi salaatu wasalaam asagaaba sheegayba taa waa lagaa qarin tan kalena waa la awili wixii doona lagugu samayn qolya reer macallina yaa waa isku qabsaday baa la yidhi rag bay kala dileen reebel waxaa lihi sheekhiini keensada qolyihi kale waxaa igu sheekhiini sheekhba malihiinoo macallin baa noogu weyn bay yidhahdeen macallin baa noogu weyn garti baa la galay qolyihii sheekh la-aanta ahaa in sheekh lahayn baa lagu qalloociyo matala masalada laga helay oo lagu xukumay dhowr iyo 10 geela laga qaaday iyagoo iska dhaqmaadahayo oo iskaba sabray iyo waa dambe sheekh iyagoo xirayo oo xagga iyo baardhe koonfur ka yimid xakaanta koonfur baa loo dooran jiray carabiyada iyo adabka iyo naxwadana galbeed baa loo dooran jiray intiina kale labadaa qoys baa ida haystay reer koonfureed iyo reer galbeed koonfuroo loogu yimaado axkaamta iyo tafsiirka iyo reer galbeedoo loo aado hadda laakiin baashii isbedeshay gobolahii dhexe iyo waqooyi iyo bari iyo north eastern baashi way ka socotaa intaa way kaftana wadaadkii markuu yimid yuu masaladii la weydiiyey waxaa leeyahay 10 sano ka hor intaad xirnimada ku maqnayd annagii reer hebel dhiigaasaana kala galay intaasoo geel halaad baana laga jiiday sheekh hebel baa xukumay jaba buu intuu madaxa qabsaday waad jabteen garta hadda la soo celiyey waxaan oga jeedaa ninkaan sheekh lahayn ama isagoo aan isku fillayn baasha waa lagu fadalloocin ibn cabdilhaadi wuxuu u fiirsay ibn cabbaas wuu waafaqay buu yihi xaqii buuna ku taageeray maca maa kaana baynahumaa cabdullahi ibn zubayr iyo ibn cabbaas iyagoo isku xun haddana wuxuu xaq yahay ma aha hebel xadhe iska joogsi baa naga dhexay col baa nahay waa in isku taageero colaad baa ka dhaxaysa isku xogow waa isqabteen sayidina cali baa sidaa laga wariya cumar baa sidaa laga wariya ibnu cumar laftirkiisaa laga wariya wax ku khilaafay saxaabada arrinkan ma jiro sideeduba aharkii la lugooyey ii sheeg cuthmaan ibn cafaanna khulaasadiisii waa idin soo siiyey waxaa lagu caliqubaa idiraab baa jira idiraabka rasaa'il intii laga qoray baa laga jawaab maa laga hadlo maxaa loogu dul wareegaysan wadaad ibn cabdilbar la yidhaahdo oo waxaan jirin sheegay wax idiraab oo jira ma jiro maxaad ku barateen bayquuniyada idiraabka maxaa loo shardiyaa
laba shardi baa loo shardiya qolyaha iskhilaafay waa inay isku awood yihiin xagga tirada ama tayada qodobka labaad waa inaan jamac suuro galayn oon riwaayadka la jamcin karin labadaa shardi marka meesha laga waayo jamacna suuro gali waayo dadkuna ay isla eg yihiin xagga tira ahaan ama taya ahaan oo isceshadaan kadib baa le xadiidku waa mutarib waxba kama jiraan wakiin cabdilbar uu sheegay laa yaquulu axadu min almuxadisiin waa war asagu uu ku difaacayo maalikiyo oo sunnada meesha ku timid aan helin aarka xataa cumaan laftarkiisii yidhi waxba kama jiraan waa ciiduna waa waajib jumcaduna waa waajib sunnada meesha taalla sunnadaa wey duhur in la tukado sal ma laha saxaabana kama sugno waxaan arkaya qolyaha qaba jumcadu markaad ciidda tukato jumcadu waa ruqsay kuu tahay waxay qabaan sida cumar iyo cali loo tiiriyey saxaabada in duhur la tukado waa been cad wey waa been cad waa taxadda ilaa qiyaami saaca in la keeno saxaabo qabta ninkii ciid tukaday jumcadu ruqsay u tahay laakiin duhur inuu tukado wey waa jeebkooda wey ha ku khaldamina waa iyaga jeebkooda shuqul laguma laha jumco ninkii ciid tukada sida nabiga ha yeelo oo muxuu nabigu sameeyey musallaha markuu ka soo dhaqaaqo waxoogu hilbihii loo kariyey iyo xalwadii isla dhaxo qamiiska ha soo bedesho iyo dhiiqada jumcada ha usoo xaadiro ma daayay ruqsadii ha qaato ha iska seexdo salaad casar salaad ha uga horeyso caruurtiisa ha ciid geysto maalinkaa muxuu saa u yeelayaa ninkaa jumca wuu tukadayba xaggee ku tukaday ciiddii buu hoos geliyey ninka xajiya ee cumro iyo xaj isku darsada maxaa loo yaqaanaa qaarin baa la yidhaahdaa hal dawaaf buu la yimaadaa hal sacyi buu la yimaada bayna safa walmarwa halkaa sacyi iyo halkaa dawaaf maxaa ku hoos naban sacyigii cumrada iyo kii xajka dawaafkii cumrada iyo kii xajka waa isku rakiban yihiin ninkii ciid tukada kadibna go-aansada inuu casar ka bilaabo salaad waajiba ciiddiisa waxaa uga hoos naban jumcadiiba ugu jirta hadda kahor baa idinka sheeg wadaad nicmatullaahi la yidhahd iyo wardi meel la fadhiistay wadaadan qarabana laa ilaaha ila allah laa ilaha illa daldalay xirow baa yidhi maxamedun rasuullah miyaa ku jirta adeero adoon laa ilaaha illa allah besa ku haya maxamedun rasul wuxuu yihi hoostay kaga nicmaysan tahay hadda kahor baa idinka sheegtay inaad fahanteen baan u malay war ninkii jumco ciid tukaday ee go-aansaday inuusan jumcada tagin wuxuu ka dhigan yahay nin jumco tukaday way fahanteen baan u malay jumcadu laba qaybood bay ku dhacdaa kala fahma inaad kas ooga tagto iyo in salaad kale oo tukatay ay rido labadaa mid wey ninkii kas ooga tagay haddee waxaa laga rabaa sidii wadaha qaarkood ay qabaan duhur daliilla looma hayo laa xadiid walaa ijmac ma jiro ninkii cudurdaar kale ooga tagtay hurda la tagtay ama hilmaamay ama laga hortukadoo soo gaari waa isagoo soo socda wuxuu tukan inuu duhur tukan iyo in kale waa masale khilaafiya duhurba u daa ninkaa maxaan duhur u saaray ninkaa waxaan duhur u saaray salaad uu tukaday oo jumco riday ma jirto laa jumcana ma tukanin ciidna ma soo tukanin salaad kale oon dhahano jumcadu hoostay kaga nicmaysan tahay miyaad haysaa ninkaasi duhur inuu qabto oo la yimaado waa wax macquul ah haddaynu u dayno laakiin ninkii ciid soo tukaday wuxuu ku leeyahay anugu waan soo jumcaystay xagee ku jumcaysata jumcadaydi waxay kaga nicmaysan tahay hoosta ciidda inaad fahanteen baan u malay fiqiga xataa waxaa tilmaamay taabiciga ay qabsatay qadiyadu ee yidhi caamaduna duhur bay aadeen culummaduna waa iska kala dareereen wixii la sameeyna maysan inkirin waa cataa shacbi baa lamida waxaa lamid ibrahim nakhuuri waa laba ciidoodi axaduhumaa yujza can ilaakhar kolba ka horeeya ayaa kaaga filan bay dhaheen wadaadaha taabiciinta waxay leeyihin matalan haddaan iska dayno ciidiba oon jumca tukana ka warraba su-aasaa ka jawaaba ciiddiiba farahan ka qaadnayba jumcaan tukanay taabiciinta waxay leeyihiin ciiddina waa tukateen usayn ku tukanay
ciiddu waxay ku lamaan tahay jumcadii say jumcadu ugu lamaanaan jirtay waa laba ciid bay leeyihiin أحمد بي كسوغان تاي عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه كأخرية بحال آضو هذي لبعيد كلمان مدوت كلام كغفلان تاي لا بأس به وأرجو أن يجزئه دب ملابو لبدا إيو كلبات تاي تكتا كلا كغفلان نينك عيد كو كافتومي وانينتو كذي جمعة حق دور على مرك حق دور على هذا جمعته كتام ظهر بالين كربه إفانسية مسألة عام علماء السمودين اللقين انت سنعيد كده والله أعلم. مرحبا. ساعد اللي تكنوا يا إمام كائنوج آمين لكن محمد رقنا هانجرتي لبا ساعة يبر إلى 3 ساعة. لبا ساعة يبر إلى 3 ساعة إن شاء الله تعالى. هرين هالله صور نقصد عيدة إن شاء الله بحي سؤال قبا فرت وضف صحنتي سوق رميسان فرت تاكتا. إن ليس عبوريات برتينه فرت تاكتا. مرحبا. مرحبا شيخ. عيد وسنة العون واجب السنة واجب مركب وذاتك وحوي نينك إذا هذا عيد وسنة جمعتنا واجب سنة واجب ملقي كرت محط كليبه حكم كان نينك قاربا ويديننا الحكم بريد صوم محوجي عيد وسنة جمعنا واجب سنة واجب ملقي كرته يا كبير بان لنا يا كوري عيد سنة عيد واجب بالنفس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تكتب المسألة ذا وحيتصيصا إنه واجبته إمام الشافعي باقب عيد إنه واجبته في الرسالة وفي الأم بكعدين مركتا هدي للديدة حتى أننا عيد وسنة نبي محمد إله النوصر درنا وعامة وحبك قرانين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأنزل إليك ذي لتبين أيان يلي عيد يجمع وإسحان بارتان ولا قول بعد قول رسول الله خلاصة وإنت مركا كوباد وحان لنا هم أقولين عيدا سنة هذا من كود ديننا نبي محمد باني ولا بعيد وإسحان باران كران انت أصلا نوف هدا ديدو ومذهب الصحابة نينك إيه كيران ربع صحابي انت خلاف سلم سهلا وركان إذن شيء صحابي خلاف سلم لما سهلا صحابي اللي لقوا أثر كيسي أها إيه شيء عثمان إن فهمتين بان ملايين يا كلي مرحبا نينك عيدة كذا إن خطبة دقيسن حكم كسمحون نقوم ببذات كاير أني يسن أن دقيسن نوي أنا بكارك في قناة واسدة نينك حكم كيسو حو مقعا علي نينك حكم كيسو حوي نين جمعة كصوت داهي أن خطبة عبد الرسول قارن لما ركعوا تكذب محاو حكمه جمعة المتو كذي مسمى تكن وتكذب نين صلاة جمعة كصوت داهي خطبة وضعفتي لما ركعوا الرسول قارن جمعة وتكذب نينك عيد الرسول قارن خطبة وضعفتنا أما كتجنا وعيد يستي وحنا وقتها خطبة العيد ويكتم بيس الصلاة نينك الصلاة الرسول قارن خطبة الرسول قارن ولازم يعني لكن أصلا كتير خطبة واسمه خطبة هذا بسنة ولا كتير كرا أحاديث باقوتي من ضعف كجرو والخطبين الناي نيك خطبة دقيسنا هفريست نيك دوانا هي اللي بكيسي هذا حلوانيس مرحبا شيخ حسن وراتني كوسا كفرة ولا ولا حاجة كتير سيدا هذا اللي تشوفه يصير لو شيء أساسا سمعنا منه مقعاذو عرب هذا بيري بقمقش محمد وحولي 20 سنة كهر سيدا الله ذا بيتحد لو شيء جيرين هذا ينضم مرهيان بوله هذا يكون قبضته هو كوكاسا نينا قرابنا ماشي كعي وحولي أضو محط 70 دونتا ونبحي فسلام ما هاي أنا قلت طبعا كسان الله صور ضعفي هدان عيدة تكدو صلاة واجب تكدو عصر بايغو هرس
saasaanan yeelaa ninkii muran ka qabana niqaash baan ka ogolahay waxba in la saxanta ma wanaagsano shubha walbo sheegeen kitaabka ijtimaac diin baan kaga jawaabay lagama jawaabahayo jawaabihi aan sheegay waa laga leexan meelaha igarka kore yaa wuxuu yidhi nin dayoobay waxaa lagu yaqaan inuu degayga meeraaye degayga kore yaa lagu yaqaanaa marka taas la iskuma lugooyo ninkii su-aal qaba caawa u furan tahay ciidda ku saabsan iyo sakaatulfitriga soo daayay marxaba أثرك عثمان بن عفان سند كيسو صحيح صحيحان كنا كيما في صحيح البخاري وغيره لكن وحل اسكو هيستو سلف اسكو خلافين حتى ابن عبد البر او شيغي ان علماء اسكو خلافين وجد عثمان أثرك ومختلف في معناه دلاله سنه وحان كو شيغي سدان شيغسان ka ahayn واحد gudub idinku ma aqli baad leedin waxa idin sheegay dib u fiiriye niman jumca ku waajibin waan ku fasaxmay socotaa nimay ku waajibtay waan ka ridimay socotaa abadan imaamku macna u jeeday waa lagu xiyaa ahmed baana ku saxano u daliishaday wuxuu u jeedaa uthman mar hadad ciid tukateen jumca waa sun ee masaajidka soo loo camiro in fadhiya intii nafogna danaysta macnaha kan khalad weeye inta waa aad bay la kaftamay waa noqosasheen baan u malaynayaa waxaana keenaya masaa'ilka cilmiga lagu ciyaarayo ba keenaya masaa'ilka cilmiga lagu ciyaari adoo ra'yigaad qabto si la difan oo gobannimo leh oo raganimo la u sheeg waxba ha diganin ha caraatamin ha digdiglayni marka nin walbana tiisa waxa la yiri labo ku isku miirdan maxaa la 4 min 3 baa la dhigay nin qab weyn iyo niman u qabin nin qood jeceliyo niman u qoodin isku miirdiima nin wuxuu guri jecelino oo qooro waa baxay nin kibir buu ku taagan oo sankooba ku socda ninna oo ogaba marka nin ba caalim ismoodi anagu oo ogin ba isaga israfaadanaya miiska garaacaya oo ogin taa ogaada mas'ala diineed ninka ka hadlay si gobonimo uga hadlo ninkaas ugu beentiisu cadaatana in loo jawaabo ma mudno intaas aan yeelan lahaa su'aal wada ka dhamayso wali faraha taagan marxaba soonka shawaalka sabtida ma la bilaabi karaa culimada muslimiinta waxay u badan yihiin waa la bilaabi karaa anigu laakiin ma jeceli waxaa yeelay xadiis baa ku yimid inaan soon sunna ah sabti la soomi karin la isku haysto ma saxiix ba mise waa daciif culimada badan waa saxiix bay leeyihiin waadana way daciifiyeen shay sunna ah oo la isku hayo ajir baad ka heli iyo maye dambi baa lagaga qori waxba ku degdegay maxaa ku banaan axad ka bilow احتياط كوحو كينيا ورعان كو شيغي شيغان وا حاران يو بنايا مر هذا اسكو خلاف maxaa kula gudbo xaqana dhulku waasiciya meesha inaad fariisato way ku banaanta ajir baad kaliba wadaad ku yiri dalil buuna ka siday nina wuxuu ku halkan hadaad fariisato waa lagu cadaab xadiis buuna ka siday maxaa dhii meesha la isku haysto maxaa dhiga balaayq haka iska fariiso sabti hadii lagu murmay wadaad oo ahad iska ah waariga taladeeda laakiin culum waxay u badan yihiin إلا سومي كره والله أعلم مرحبا أنت جوجل الصومال جو زكاة تدري والله بيحكي لنا صومال مركي هورين هلا هي حاجات جرت كومردي هنا أديك ماشى جوجتاي أبدان تاي زكاة يعلمون كو إجماعين أصل إن لغو بحيو ومساكين تبلد كذا جوجت الله سين حديث لكن قرابة حاجة شيران صومالي أما باهي وحق أبدان تاي والله سيقاري كرا انت ما لو بixi kara qof halkaas waalidkay Soomaali jooga halka loo bixi kara هذا zakada bixinay ninka zakada bixinay u baaba la eegayaaba adigu meesha joogta zakada ku bixinaysa yaa bixinay zakada ma adiga mise waalidka waalidka bixinay Soomaaliya lagu bixinay marxaba dadka acdaadka miyay soonka wadaca ayuu waalidku dadkii soonku wax dhaafay 6 shawaalka intay soomaan soonka dib ma u dhigan karaan ramadaan lagaga lahaban u qaatay soo sidaa ma sida loo baahan yahay tay ramadaan qadiis dib iskaga dhigtaan oo 6 shawaalka soomaan yey sanadka inta ka dhiman ka soomi karaan maalmihii lagaga yeeshay ramadaan waa sida loo badan yahay laakiin waxay ku jirtaa amaanado naf meel ay gaari war looma hayee
iska hormari deynta lagu leeyahay kadibna u gudub sunnada saasay ku fiicanta xuseen qalaaf wuxuu leeyahay waa daalay xajarka waa iga buuxsamahayaa su-aalaha la soo koobo saasaan u garta marxaba ma dhici karto aarka cabdillahi bn zubayr maadaama uu jumco iyo duhur usoo bixin soo ma dhici karto inuu guriga ku tukaday sidaasuu wadaadku leeyahay ma dhici karto ardadiisiibaa waxay ka fahmeen in uusan laa duhur walaa jumco tukanin bay sheegeen ibnu jurayj wuxuu leeyahay cataa baan weydiiyey hadday ciid iyo duhur kulmaan ciid iyo kulmaan jumco wuxuu yidhi ciidda tuko kadibna salaadaa tukata kugu horayso casarka markaasaan yaabay buu wuxuu yidhi cabdillahi bn zubayr baa sameeyey markaan ku qabsanayna sayidina cumar buu u raray buu ibnu cabaas baan ku dacwaynay asaaba sunnata buu ibnu cumar baa loo tegay mar kale wuxuu ihi falam yunkir calayhi haddaba wuxuu ihi uma hiya xata alcasr ciid baa lagu gaabsan casar baana kugu horay macnaha inaad fahanteen baan umalay luqluqa iska daaya midaan jirinna ogaada culummadu nin qaba ma jiro masalada marka laga tago adoo jumca tukan kara waajibna ay kugu tahay ayaa duhur tukanaysa wax qaba ma jiro ninka duhur ku orday jumcada ha yimaado maxaa duhur ugu fanaqsanaysaan aan la idiin dirin war jumcada maa timaadaan adoo duhur jumca waajib ay kugu tahay xaggana ay kuu suurageli jumca inaad tukato duhur ma la aadi karaa abadan nabigu labadaa khiyaar buu kuu furay maqaamkuna waa maqaamu bayaanin wa tacliim imaa inaad tukato ciid iyo jumco isku darsato iyo imaa inaad ciid ku kaaftoonto waxaa saddexaad anugu bidcaan u arkaa wadaadaha dambe ku khaldamay a'immada waaweynna masaladu way ka hoos baxday daliilkaana ka qarsoomay ma khaldamana waa ilaahay subxaana wa tacaala wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu